السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay sheekada guusha Samsung. waxay soo jiitay sheekadan Samsung. sheekada guusha Samsung waa sheekada guusha qof la yiraahdo Byung Chul Lee. qaar badan oo inaga naga mid ahi ma garan karaan, laakiin calaamadiisu waxay ku jirtaa guryaha boqolaal milyan oo adduunka ah. Kuuriyada Koonfureed waxay caan ku tahay warshadaha elektaroonikada iyo gawaarida. hal nin oo ka soo jeeda Kuuriyada Koonfureed ayaa bedelay gebi ahaanba suuqyada elektaroonikada iyo telefoonada casriga ah. Byung Chul Lee waxa uu ku dhashay 12 February 1910 Yuryong ee ku taala koonfurta Korea. Chul wuxuu ka baxay jaamacadda Waseda University ee ku taala Tokyo, laakiin shahaadadiisa kama uusan dhamaystiranin. wuxuu soo maray dhibaatooyin badan. bilowgii shirkaddan Samsung waxay ka duwan tahay wax kasta oo aan filan karno. waxay bilaabantay 1938 markii Byung Chul Lee dhistay dukaan iibiya bariis iyo sonkor oo lagu magac daray Samsung, oo af Korean looga jeedo saddex xidig. haddaba si xoog leh ayay u gashay suuqyada caalamka, taasoo ka tagaysa bariis iyo sonkor. Samsung waxay bilaabeen samaynta TV-yada, mishiinada dharka maydha iyo qaboojiyayaal. waxayna ku taageereen dalabyo cusub oo ah bixinta iyo damaanadda. sidaa darteed waxay ku guulaysatay inay dunida oo dhan ka guulaysato warshadaheeda. arrinta xiisaha leh ayaa ah in tababarka shaqaalaha cusub ee Samsung ayna ku koobnayn oo keliya dhinaca farsamada iyo xirfadda, laakiin sidoo kale waxaa lagu tababaraa shaqada kooxda iyadoo loo marayo soo bandhigid cajiib ah oo shaqaalaha cusub ay sameeyaan sanad walba. ka qaybgalayaasha bandhigan ma ahan ardayda dugsiyada ama ciyaartooyda, laakiin waa injineero, farsamayaqaano iyo maamulayaal ka shaqeeya shirkadda Samsung. iyaha ku dhiga ah ciidan cilmi baarayaal ah. mogeed in Samsung oo kaliya ay leedahay 50,000 oo baarayaal ah. aasaasaha Samsung Byung Chul Lee wuxuu ku dhintay magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed 19 November 1987. laakiin shirkaddu waxay sii wadaa raacitaankii falsafadda ballaarinta. intaas ayuu ku dhan yahay muuqaalkeenani. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.